labada qofood oo isla wada socda qof walba waxa uu soo bandhigaa waxyaabo qofka uu la socdo uu ku jeclaan karo yacni dareen uu isaga u dhalan iyo hadallo uu isaga niyadiisa ku jirin ayuu mar walba ku hadlaa si qofka kale uu u soo jiito. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسو دوادا موقال عصب وولالكين محمد سالم هدي الجنال كو عصب تهاي فضلا سبسكرايب نوصل موقال كنا لايك نوصل أرنتاسي أي إنو دي رجلينيسا مانتا وحان إذن هيا موقال قصابسا يعني دادك الصحاب تاه وحريرك كدحية أما جعلك كدحية سؤال لا iska weydiinayo iyo yar professor ah oo su'aasha arintaas laga weydiiyay ka jawaabaya su'aashu waxa ay tahay dadka isjecel ama dadka xiriirka ka wada dhaxeeya sida aad wada ogsoon tihiin labada qofood oo isla wada socda qof walba waxa uu soo bandhigaa waxyaabo qofka uu la socdo uu ku jeclaan karo yacni dareen uu isaga u dhalan iyo hadallo uu isaga niyadiisa ku jirin ayuu mar walba ku hadlaa si qofka kale uu u soo jiito. su'aasha halkan ku jirta oo isweydiinta mudan oo yarka professorka ah la weydiinayo waxa ay tahay dadkaasi yacni dareen iyaga aan lahayn ayay mar walba isu soo bandhigaan hadallo oo qalbigooda ka soo goyn ayay mar walba isku adeegsadaan yacni dabeecad iyaga aan lahayn ayay isku dhaqaan marka haddii lacalla ay calaf isku yeeshaan oo ay isguursadaan oo guri iyagleelaan dadkaasi hadhow danba marka guriga la joogo soo soo bixi karto dabeecadda dhabta ah ee ay iyagu leeyihiin yacni xaqiiqada dhabta ah banaanka miyay imaan kartaa marka ay guri tagaan sababtoo ah markii hore markii ay soo wada socdeen dadkaasi oo xiriirka ka soo dhaxeeyay yacni dabeecad been ah ayay jilayeen si qofba qofka kale uu u soo jiito markii guriga la imaado dabeecadda runta ah oo labadaasi qof oo ilaahay u dhaliyay soo soo bixi karto lacalla haddii banaanka ay soo baxdo maxaa lagu daweyn karaa arintaasi dhac ka sii jawaabta ay professorka bixinayo. su-aasheedu waxay tahay waxaan ognahay in dhalinyaradeenna Soomaaliyeed gabdho iyo wiilalba ay inta badan ay sameeyaan wax la yiraahdo shukaansi sax marka afaarahaas oo kale marka alaabahaas oo kale marka lagu guda jiro waxaan ognahay in qofka dabeecadiisa rasmiga aan la fahmi karin waayo halkaasi waxa lagu soo bandhigaa qof waliba dabeecad uusan lahayn intuu saaxiibkiisa ama saaxiibkiisa ula joogo ayuu soo bandhigaa qofka kale uu dhoola cadeeyaa waa uu qoslaa waa dabiic iyo dabeecad uusan lahayn xitaa wuu iska keenaa marka alaabahaasi oo macnaha madadaalada aniga madadaalan ku magacaabaye la isku soo bandhigo ama la isku jilo soo kuma yeelan karto saameyn markii guri la wada tago dabeecadii asalka ah ma soo bixi kartaa haddii ay soo baxdo sidee lagu xalin karaa runtii su'aashan waa su'aal sax ah oo runtii u baahan in laga feejignaado gaar ahaan dadka xiriirka sameynaya in ay ka feejignaadaan ayaa loo baahan yahay waayo dadku marka ay wada socdaan oo xiriirka uu aad u sii xoogaysanayo badanaa waxaa xiriirkooda ku sii xoogaysanayaa dabcan kelimadaha ay adeegsanayaan iyo wanaaga qofba qofka kale uu u soo muujinayo marka waxaa loo baahan yahay in arintaasi oo dadkaasi sameynayaan in hadhow dambe khasaare ka imaan karo ayaa laga yaabaa marka runtii su'aashan jawaabteeda waxaa loo baahan yahay dadku in ay fahmaan gaar ahaan dadka lamaanayaasha ah runtii aniga waxaan qabaa qofku waa la ogaan karaa yacni qofka caqli leh baaritaan adag sameeyo qof iska socdo keligiisa oo maalin walba markuu ku yimaado kuu sheekeena inaad ku qanacdid sax maaha yacni qofkaasi markaad adiga wax kastoo adiga aad danaynayso waa inaad waqti iyo ihtimaam badan aad siisaa waxaad samayn kartaa tusaale ahaan inaad qofka haddii aad tiraahdo yacni qof wax qarqarinaya laalaabi luuqluuq looma baahno qofkan haddii adiga ay kaa go-an tahay mustaqbal inaad la wadaagto oo aad in badan noloshiisa ama dhaqankiisa aad ku qanacdo waxyaalaha loo baahan yahay inaad ka codsato waxaa ka mid ah inaad reerkiisa aad barato inaad taqaano familkiisa hooyadiisa walaalihiisa kale adaaradiisa dadku asxaab leeyahay gabdhaha la dhashay dadkaas oo dhan waa inaad taqaana haddii qofka aad tidhaahdo reerkiina isbarano oo intaasoo muddo a wada socoteen uu ku leeyahay maya hooyo ma rabo iyo ku geyn kara iyo mid dhib badan eedadeeda la jooga taas hadday ku aragto bilaayo kale igu kicinaysa iyo aan ogolayn
wax isaga ku tacalluqa asxaabtiisa iyo familkiisa in la barto yani meeshaas waxbaa jiro yani suurtagal maaha inuu qofka qariyo suurtagal maaha inuu wax qarqariyo waa inuu ku faanaa qofkan hadduu ku qanacsan yahay reerkiina inay isbartaan adigana inaad reerka dhex gasho halkaas waxaa ka ogaan kartaa asxaabtuu la socdo reerka siduu u nool yahay dadka say u tixgeliyaan xitaa inaad barato dadka uu la shaqaynayo hadduu shaqaynayo qof aan shaqaynaynin dee ma aqaano sida reerku guursanayay xitaa dadku shaqaynaya inaad isku daydo inaad barato wax badan oo xogtiisa ku saabsan waad baran kartaa labo mararka qaar waa la imtixaana ragga imtixaana la marin karaa si dabeecadiisa dhabtaa usoo ogaato waxaad ku samayn kartaa inaad tiraahdo warniyow aniga waan fikiray wax badan baan rogrogay waxaa laga yaabaa inaan mararka qaar xitaa meelaha shareecada islaamka ogoshahay in xoogaa beenis ku sheegsheegay ku jirto inaad tiraahdo war aniga niyow wax badan baan fiiriyey arrintan xiriirkan reerkeennii markaan dhinacyo badan waxaan ka fiiriyay inaan iska soo afjaraan rabaa waybigu adag tahay sidaas daraaddeed waan ka cudur daaranaya adiga waan dhabkaa ahayn waxaad ogaan kartaa intaa la egta jiddiyadiisa ma waxaasa ii keentay waxaas maa wada hay-ada maa igu bilowday waxaan soo marnay o dhan ma hadda waxaas ii keentay imi rabtid waa kuu jeeda ol waa kaa sheegsanaya day dalabka waddada ku qulqul hadduu ku dha iska bax de haddii adig caqli badan aa leedahay soo celin kartid jacaylka dib u abuuri kartid geedo adag aa u samayn kartid shub adag aa dhisi kartid waa adigii dadnimadaadi kartidaad laakiin waxaa kuu soo baxay geedkii aa beertay muddada aad soo waday in xididdo dheer lahayn lianna intaa kuma qancay qofka waa inuu muxaawalaad badan sameeyaa ku qanciyaa xitaa haddaad tidhahdo reerkan waa la tahriib raba inuu ku yidhahdo waaba kaa doonan haddaaba soo gebagabaynayaba adiga waa ka haraysaa kenya waxaan loo socda aniga kuma qanacsin hooyo ii geey aabbi ii geey aan odayaal soo diro adeer soo diro aan deen soo raadiyo waxaan gebagabayno yacni wuxuu keenay boqol xuluulu keenaya kadib waxaad tidhahda ha isdhibine bal anaa wax soo xalinaya dee anna waan soo fikiraya an naftirkeyga culays badan baan dareemaya xalay ma hurdina isku soo noqona dheh kadibna xaalad u deji adigana waxbaa kuu soo baxin ihtimaam meesha aa leedahay laakiin de waxaas oo dhan waa la ogaan karaa marka wax badan baa jira laakiin waqtigaan oo saamaynin aada umahadsantiin